الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وجهه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnay xalaqadii dheereed oo ahayd oo barakeysnayd acmaashu Allah subxaanahu wa tacaala u jecel yahay. shalay waxaan kasoo sheekeynay salaada waqtigeeda la tukado waa kii koowaad. kan labaad maanta waxaan sheekeynay birrul waalidayn, waalidka in baari loo noqdo, waalidka hooyadii aabbaha ku dhashay oo adduunka kaligood maa qof kale aadan haysanin waa ina baari u noqotid. adduunka caruur waa dhali kartaa, xaas waa heli kartaa, ama naagta nin way heli kartaa, laakiin hal hooyo hal aabba ka badan adduunka kuma heli kartid. xuquuq badanayna kugu leeyihiin, waajibaad badanay kugu leeyihiin. waxaas dhan markii laga soo kale ilaahay wuxuuba ka dhigay camalku Allah subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay. rasuulku markii la weydiiyey Cabdullahi ibn Mascuud ay sheeg wuxuu Allah subxaanahu wa tacaala u jecel yahay, markuu kasoo hadlay wuxuu yidhi waxaa ka mid ah birrul waalidayn, waalidka oo baari loo noqdo. waalidka baari loo noqdo waa acmaashu Allah subxaanahu wa tacaala u jecel yahay. jannaa lagu galaa, adduunyana khayra ku helaysaa, caruurtaada baari kuu noqonaysaa. oppositekeedana waa kabaa dunuubtan ugu waaweyn ee kamid ah waalidka caasi ku noqotid waa dambigan ugu weyn waaye. aakhira meesha meelis Allah subxaanahu wa tacaala dadka caaqa waa ilaahay wuxuu yiri, rasuulku wuxuu yiri wax lagama aqbalayo laa sunna walaa waajib lagama aqbalayo. marka therefore camalku Allah u jecel yahay waa birrul waalidaynka aan ku dadaalno. ilaahayna waxaan weydiisanaa inuu naga dhigo baarul waalidayn naga dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.